maanta hoosta ka xiriiqaynaa toddobada cishay ciidanka la baxayaan inaanan waxa weeye bartaa u dhaafin dagaalna aanan ku qaadin deegaankayagana annaga waxa weeye u xora annaga waxa weeye sidaan doonno ka yeelin waana u sheegnay markuu diidayna waxaanu maanta idin cadaynaynaa inaanu annagu aan cidna duulaan ku ahayn madaxweynahana waan u sheegnay hadduu hadda ciidankiisa la baxayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد صدق في ملك سوداني دافيد كجوكتان ومركز الوقلاء سودو صاحبيان مركز كورسين سمر ترديت هاي وحلا جاك فدي داود المقال كلا يكريسو يوتيوب كنا سبسكرايب كريسو بقيني فيسبوك داتكو أسبتنا فلوي لاجنا سوق درتو ياد بدو ما سنت صاحبكم ما سنت جوكتان كني كم ناشينا حتى أصبت هاي سودو وخلنا نكعفرك سودو مركز تلقي ما دو واحد دنيا عاون هالمقال دول يستاجو مقال كسوح ويان مقال إلى ساعة كهر برابشة كشري waxaan muuqaal aynu dhamaantood wada suginay oo aduguna aad sugaysaa anaa sugayay waxaan garaadadii tagay gobol magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir maxay la kulmeen waxa hadlay garaad jaama karaas Ismaaciil oo dadkarnaysan runtii garaadka guud ee beeraha gobolka Sool dega ayaa hadlay waxyaabo badan oo uu sheegay hadalkiisa waxyaabo badan baa ka qaldanaa waxaan doonayaa bal hadalkiisa in milmil u yartay istaagno meelaha yara xasaasiga aan ka yara hadallo ayaan doonayaa saaxiibayaal bal soo dhawaada bal garaadka hadalkiisana qayba kamid ah qaybta ugu horeysa aynu wada daawano kadibna aan isku soo noqono waxaan idin sheegnaa haddii nimankaas ciidankooda la baxayaan wasiir nabadgelyo oo baxayaan annana waxaanu maanta hoosta ka xiriiqaynaa toddobada cishay ciidanka la baxayaan inaanan waxa weeye bartaa u dhaafin dagaalna aanan ku qaadin waayo Muuse Biixi wuxuu meelaha ka yiraahdaa waan ciidankayga waan la baxayaa waa la daba socdaa waxaan ka mahadnaqayaa oo ka mahadcelinayaa sidii qiimaha badnayd yahay wada aragteen garaadka runtii waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi oo ciidankiisa la baxayo kadibna dad ay daba socdaan dadka daba socda waanu kala hadhaynaa daba socodka toddoba cisho ciidanka la baxayna waa suginaa uu garaadku soo hadalka u dhigay ama soo gidi ama waa soo afkiisa keediyay horta ciidamada gobolka Sool ka soo baxaya ma jiraan waxaana filayaa garaadka aan horta madaxda iyo reeraha iyo qabiilada la baxayo waa ceeb waxyaabo qaar waa dhinac wala iska dhiga moogtahay garaadka xumaan kama sheegayno beelahan mid deegaan ahaan dadka beesha dhexe gobolka Soomaaliland degana si wanaagsan buu la hadlay waa garaadka ugu hadalka fiican marka xaqeeq laga hadlay garaadada gobolka Soomaaliland soo horjeeda dhamaantood garaadka laakiin waxa leenahay garaad Muuse oo shakhsi uu ka yahay Soomaaliland waa madaxweyne kaliya laakiin reer Soomaaliland ma ogolo gobolka Sool laga soo baxo marka taadu maxaad ka oran doontaa hadalka halkaas ka gudbaya garaadka ciidamada soo baxay uu sheegay sidoo kale garaadku wuxuu dul istaagay oo ka hadlay in magaranayay ay gacan bira kaga soo saari doonaan gobolka Sool Soomaaliland dhamaantood ama ay dibadda soo dhigi doonaan hadaba garaad halkaan mid kale kaalay waxa ku leeyahay ma Soomaaliland iyo beelaha dhaxay iyo gobolka awdal beelaha degaa soo saaraysa koodhi bas ilaa ku ilmaanay radaay ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland aaminsan ayaa soo saaraysa taasna halkaas doonayay inaan kaga haro hadalka kale dul istaagay sida tooska doonayay dul istaagay wax weeyaan waana lagu soo duulay waxaana lagu soo duulay Soomaaliland baa lagu soo duushay aanan lahayn iyo magaalada dawladda aan lahayn markii hore raalay ka laakiin haddii aan diidnay ayna la dul yimaadeen waxa uu garaadkiiga muuqanaysa dhabarkiisa calanka Soomaaliya markuu cabaar hadlay inta uu dambeysay la soo agdhigay marka garaadtaan waxa ka leeyahay calanka buluuga xagga dambe dhiganaysa Soomaalida leedahay Soomaali waa mid iyadoo meel lagu soo duulin waayo qof walba hadduu choice-kiisa hadlayo maxaa sababay inaad taado ummadda Soomaaliyeed madaxweyne xasan maxamed madaxweyne maxaa sababay inaad taado magaalada Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed iyaguba deegaan iyo dad baa iska leh qabiil baan ku soo jeedaa madaxweyne kasta qabiil buu leeyahay miyaanay noqon karin garaad aan hadalkaaga dabaqaya ma hadalkaaga dul istaagaya iyagu inay nagu soo duuleen maadaama inuu qoys ku hayna anaga idinkuba yaa ma dhamaanteen isku wada ahayn meel nagu soo duulin taas kaga imanay iyadana soo duulitaanka garaadka hadalkiisa oo soo qaadan doona halkan aan soo dhigto aad wada dhigsan doontaan ilaahay idankiisa waxaan doonayaa inaan si gooni u dul istaago garaadku wuxuu ka hadlay horta garaadka aqal badan iyo cilmi badan baa ku tuhmayaayo waxa weeye garaadada ugu meel qabka badan la garaadada gobolka Sool marka xaq laga hadlo laakiin anigu aan qaadan waayo xaqatan iyo inteen waayo garaadku ku hadlay oo magaranaysaa uu shirfan yahay magaranaysaa aanu maranayo qof culimo ama qof sheekh in been laga sheegi mooyee in run laga sheegi aanu eegin hadalkaas waxa weeyaan culimaana weydiinay markaan Soomaaliland la dagaalamayna ama ciidamadeeda waxay noo sheegeen inka deegaankaaga iyo dadkaaga kugu soo doonta dhigiisu xalaal yahay haddaba su'aashu waxay tahay oo aan dul istaagin intaan hadalkiisa aan magaranaysaa halkan soo dhigin ma Soomaaliland baa duushay
oo u tagtay gobolka Sool oo xoog ku haysata oo dadka kufsata oo dilaysa oo xoolo dhacaysa Somaliland cashuurtii adduunka Hargeysa Berbere iyo Boorama laga soo qaado ay gobolka Sool la geeyaa taasuna midaan doonayay idinku inaad comment ku soo jawaabtaan takadan doonayay wax weyn 2007 markii Somaliland gobolka Sool tagaysay macad xoog ku qabsatay soo warantay baa jirta ma soo maaha macad si gooni si gaar loo toojargareynaya baa jirta oo ma garanaysaa lahaa qasab la ku qabsanaya iyadoo in dul istaagin intaan garaadka hadalkiisa ginaada inaad ku sii badan ma jecliyay ma garanaysaa xuduudaha caalamiga ama wadamada halka xuduudaha ku leeyihiin waxaan wada ogsoonay intaas oo wadano isku biiray oo ama kala noqdaan meel laamka wada jooga waxaan wada ogsoonahay in Taiwan iyo China ay xuduud kala leeyihiin haddana isagoo China aaminsan in Taiwan ka mid tahay ama dal isagu maamulayna tahay haddana xuduudkooda in la yaqaano oo sida Somaliland ay tahay sida kadalik aanu China ku xadgudbi karin xuduudka ay Taiwan leedahay in wada ogsoonahay xuduudaha caalamiga ama xuduudaha dadka u yaala ay wax rasmi meel yaala hadda waxay tahay garaad xuduudaha baan ka soo gudbiyay bal hadalka garaadku leeyahay culimada noo fasaxday dhiig islaam qof islaam dhiigiisa bal in wada taawanaysa garanaya waxa weeye dagaal aan qaadin culimadaan weydiinay walba culimay ka fadwadaan ku nir arinka oo bal waxa weeye arinkaas sidoo noqonaya culimadu waxay nagu yiraahdeen ninka gurigaaga kugu yimaada ee caruurtaada kugu yimaada ee waxa weeye hantidaada kugu yimaada ee deegaanka Ilaahay adiga kugu abaaray kugu yimaada ee kugu la dagaalama hadii aadan iska celin waayahay waa daawatay ma filaya muuqaalka inta yar goonida ama aan diseegna halkaan idin soo dhigay ee daawateen muuqaalka dhameystiran baraha bulshada ka heli doontaan oo raadin kartaan garaad Ismaaciil anu saan hore sheegay aqal badan iyo cilmi badan baa ku ogahayo waxa weeye garaad wax badan ka tanaasula halka ka taagan garaadada kale Somaliland ama dadka deega Hargeysa iyo Boorama iyo Burco dadka deegaan ahaan ay ka taagan ama ka aaminsan yihiin ka aaminsan laakiin garaad wax ku leeyahay bal arrinka ku noqo oo ma garanaysaa bal culimadu qof islaam dhigiisa in dilamay banaynine bal halka inaga rabsan la garaad waxa ku soo gabagabeeyeen guntiga gabagabada ka dhigay isagana garaadku waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya labadaba ay la kulmeen shantii galabnimo tageen lixdan madaxweyne la kulmeen sagaalka habeenimo ay la kulmeen ma garanaysaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya garaad hal mahmaha ku soo qaadanaya mahmadaas waxa weeyaan waxa Soomaalidu tiraahdaa marka Soomaalida aan raaca maxool jirkii waxay yiraahdaan waxaas uu doolaalaha hadda fasir wax weeyaan neef inta xoolihiisa xoolo kale dad kale u tago ma garanaysaa aan xoolihiisa ahayn marka waxa ku leeyahay degaraad mana waa doolaalootay bulshadaanka iska naad inta soo gabagabeynaya muuqaalka dareenkayga aragtida wada la wadaagi kartaa adiguna daawaday commentiga aad la wadaagi kartaa wixii dareen qabto oo qurux badan yaa wala caya cadafada ku jirin soo dhawaada saaxiibayaal aad baad mahadsan